wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iran Jalla Abbas Araghchi oo waraysi kulul la yeeshay ayaa la weydiiyey su'aasha ay ka adag tahay jawaabaha uu bixiyey ayaa indhaha caalamka soo jiitay waxaynu eegi doonaa waraysigaas nuxurkiisu waxa uu daaran yahay anagoo idiin soo koobi doona su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ah jasiiradii qaranka ee xalayta la weeraray iyo xaaladeeda iyo weliba mujtamac oo ah hogaamiyaha cusub ee dowladda dalka Iran sababta loogu arki waayay goobaha fagaaraha goobaha fagaaraha loogu arki waayay khudbadiisiina markaas cod loo saaray oo asagoo hadlaya loo waayay odagu ma dhaawacbaa mise dhinaciisa ama dhulka yaala oo xaalad adag ayuu ku jiraa ruushka iyo shiinaha miyaa idin caawiya iyo Abbas Araghchi oo sheegay inay afuufi doonaan dowladda dalka Imaaraadka qodobadaas iyo waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay qaybta ugu dambaysa waraysigana nin dadkii ugu dhowaa Donald Trump ee ahaa markaas shakhsiyaadka farakutiriska ee talada Donald Trump markaas uu aad iyo aad uga dhageysto ayaa laftigiisii waxa uu sheegay Israa'iil in la burburinayo oo duqeymo lixaalla ay ku socdaan waa soo hadalka u dhigaya taariikhda Israa'iilna waxa ku dhacay haatan oo kale inaan la arkinin dagaalka ha la joojiyo guulna ha lagu dhawaaqo ayuu leeyahay xaaladdu waxay maraysaa xaqiiqatan mariga dhexe meel kastoo aad dunida ka joogtaan aynu ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Iran Abbas Araghchi ayaa waxaa la weydiiyey su'aasha koowaad oo ahayd markaas jasiiradii xalayta la weeraray ee qarag ee markaas muhiimadda gaarka idin lahaa weerarkeedii sidee ayuu u dhacay maxaad ugaga jawaabaysaan xaggeesa laydinka soo weeraray il gaar ah ayuu ku hayaa dowladda dalka Imaaraadka Abbas Araghchi ayaa sheegay in dowladda dalka Imaaraadka laga soo weeraray gantaalada markaas ridada dhexna lagu weeraray isla mar ahaantaasna ay ka jawaabi doonaan ficil la ogaga jawaabi doonaan dowladda dalka Imaaraadka weerarka dhulkooda looga soo qaaday waa kan Abbas Araghchi oo ka jawaabay about what has happened on Kharg Island and what is Iran's response to these strikes. Well, thank you so much for having me. I think our armed forces have already answered that they would retaliate if our oil and energy infrastructure are attacked, and they will attack. waa meesha ay u dhibato weeye fariintan toos wuxuu ugu dirayaa Donald Trump haddii ceelasheena shidaalka iyo meelaha hamaha lagu kaydiyo shidaalka iyo wax kasta oo ku saabsan enerjigeena weerar lagu qaado dowladda dalka Iran waxba la harimayso ujeedadeedu waa maxay hormuus oo xiran oo noo soo socota iyo ayaga oo markaas ceelasha shidaalka ee wadamada jaarka ay yihiin carabeed ay weeraraan waxay ka dhigan tahay cayshada caalamka oo cirka isku shareedha iyo Trump oo xaaladdu ay ku adkaato Abbas Araghchi meesha hadalkiisa u dhacayo waa cadi hawaakan any energy infrastructure in the region which belongs to an American company or an American company is a shareholder. So the reaction would be clear. Last night, they have attacked Kharg Island and Abu Musa Island with, the artillery rocket system, HIMARS as they call it, which is a low-range rockets. And they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of, rockets. And this is absolutely unacceptable. Which neighbors, sir? Well, the last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from UAE, from two locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah, and from a location very close to the city of Dubai. And it is very, dangerous that they use highly populated areas to launch, rockets against us. We would certainly retaliate, but we try to be careful not to attack any populated. وهاجا gantaalada ridada xamaha kuwa ridadooda hooseysa way kuwa kasii hooseeya
waxa uu sheegay shirkadaha shidaalka Maraykan kambaniyada Maraykanka ah ee shirkada ku ah ceelasha shidaalka iyo warshadaha lagu sifeeyo shidaalka inay bartilmaameedsanayaan waxaana muuqata halkan Iran inay ballaarinayso haatan dagaalka horena waxay u sheegeen shirkadaha tech companieska bariga dhexe ku yaala Maraykanku leeyahay waa say hadalka u dhigtay Iran inay bartilmaameedsan doonaan gantaaladan labadaana xalayta lagu soo ridayna oo sidoo Donald Trump wax u sheegayay iyo sida Abbas Araghchi u sheegayay kaafiya kala leeyihiin waxa uu yiri Maraykanku xalayto xilli Trump oo qoraal soo dhigay daakun ayaanu ka dhignay waa qabsanay meeshii anaga ayaa ka talina war noocaas ayuu ku hadlayay ninkan waxa uu sheegaya wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iran laba gantaal oo waliba laga soo riday meel dad weynaha shacabka ah oo ay aad u degan yihiin dalka Imaaraadkana laga soo riday in ay markaa gantaaladaas meeshaas ay ku dhaceen ma uusan sheegin jasiiradahan labada cidda haysata iyo in laga qabsaday iyo in lagala wareegay waxaasoo dhan halkan kuma cadda sida warka Abbas Araghchi laga hadlay laakiin waxaa cad inay dowladda dalka Imaaraadka ay doonayaan inay ka cadgoostaan oo ay ka cabaadsiiyaan laakiin anagu bartilmaameedsan weyna ayuu yiri shacabka iyo maatada meelaha ay degan yihiin waa kan mar kale asagoo wax laga weydiiyey markaan xiritaanka Hormuz waxaana la weydiiyey Hormuz maxaad u xirtay wuxuu yiri Hormuz waa furan tahay waxay ka xiran tahay oo kaliya Israa'iil iyo Maraykanka ay ka xiran tahay caalamka intiisa kalena waa u furan tahay haatan Jarmalka Faransiiska Talyaaniga India Japan wadamadaas oo dhan waxay u soo galeen dowladda dalka Iran inay la hadlaan oo ay yiraahdaan toos baan idin la xiriirinaa shidaalkeenu meesha noo sii maro oo Donald Trump ay xareer marayaan aysan ka haybeysanaynin cidda bedel daabkeeda haysta oo meeshan isbaaradu ay u taalaana dowladda dalka Iran inay tahay inkastoo aysan jurisdictionkeeda iyadoo aysan lahayn 100% haddana waxaa ku taxan gantaalada Iran ayaa ku taxan markaas oo kulaalaya xeebta oo dhan markabkii soo marana gowda ayay ka saaraysaa wayna ogeyn 3 markab maalintii Arbacada ahayd in la gubay shidaalkii caalamkan oo cirka isku shareeray marka cidda meeshaan ay ka xiran tahay waa Israa'iil iyo Maraykanka ayuu yiri Hormuz dadka kale waxay ku mari karaan si markaas nidaamsan waxa halkan ka muuqata dowladda dalka Iran inaysan doonaynin caalamka oo dhan isku dirto oo ka soo horjeesato dagaal lagulama jirtid Soomaaliya maraakiibtaadu ha maraan wax dhibaato ma lahan dagaal baan ugula jirtaa ama dhulkaaga laga soo weeraraa anagoo dagaal baan kugula jirnaa waa kan mar kale Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. And at the same time, there are many tankers and ships who are passing through the Strait of Hormuz, and I can say that the strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli, ships and tankers, and not to others. وحاجات dhinaca kale hadii daawadayaal aanu ka eegno ra'yigeena hoos lagula wadaaga wasiirka hadallada uu ka jawaabayo Hormuz waa la xiray albaabada la isugu dhuftay lama mari karo waxaasoo dhan waxa leeyahay waxa loogu duur xulayaa in Iran caalamka loo tuso inay iyadu tahay tan isbaarada dhigatay isla mar ahaantaasna dadka Maraykanka oo dagaalkii ka soo horjeestay aan sharciyada lahayn markaas lagu laablaxawsado ujeedada laga leeyahay waa taas oo Trump markaa dagaalka sidaas uu ku gado laakiin Abbas Araghchi waxa uu yiri halkaan waa furan tahay labadaas qolo kaliya oo baanu bartilmaameedsanayna dhinaca kale miilooyin baa la dhigay oo lama mari karo lagama tilaabi karo hadalkiisa kama muuqato oo meel miina ay taalo maraakiib ay dalal dagaal ka dhaxayn mara ma aysan oran lahayn laakiin shakiyuusan ka gelin shiishka Iran ayaa saaran Hormuz waxa maraya cidaysan iyadu u ogolaanina halka kama tilaabayso waa kan mar kale asagoo wax laga weydiiyay hogaamiyahooda cusub oo maalmihii saacadii la soo dhaafay khudbeeyay oo aan weli meel babliga iyo lagu arkinin tan iyo intii aabihiis la dilay 28 bishii la soo dhaafay sanadkan 2026 dagaalku markuu bilowday 3 toddobaad haatan madaxa la galay oo 16 maalmood haatan dagaalku inuu jiro ay muuqato
waayahay cabaas caraaji waxa uu sheegay been in laga sheegayo shalayta ayay ahayd ayuu leeyahay markii madaxweynaheena iyo asaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dowladda dalka iiraan ay shaariciyada waaweyn ee markaas magaala madaxda dalka iiraan ee tahraan ay mushaaxayeen ayagoo bulshada isla sawiraya la sheekaysanaya isla mar ahaantaasna dariiqyada maraya marka propagandada iyo beenta waa lagu yaqaanaa ayuu leeyahay hogaamiyaheenu shaqadii qaran ayuu haystaa maalin dhowna waxaad arki doontaan asaga oo markaas dadkiisa dhinac ka raacaya oo nolol maalmeedkiisa iyo shaqadiisii ku guda jira waxa uuna hoosta ka xariiqay inaysan jirin markaas wax khasaare ah wax dhaawac ah oo soo gaaray arrintan ayaa imaanaysa xilli dowladda dalka maraykanka madaxweynaheeda wasiirka gaashaandhigga iyo kuwo kale ay ku hadaaqayeen ku celcelinayeen in markaas mujtaba cali khameyni uu dhaawac soo gaaray arrin la qariibsan kara maahan maxaa yeelay aabihii hooyadii xaaskiisii iyo caruurtiisii mid ka mid ah ayaa qaraxaas lagu dilay isaguna goobta inuu joogay ayaa la sheegay marka arrin aan la qariibsan karin weeye laakiin cabaas caraaji goor dhow ayaad arki doontaan ayuu yiri marka warkii maraykanka ka imaanayay oo lahaa his disfigured waxa weeye wejigoo qaarku go-oo kale iyo waxyaalaha la midka ama dhaawac weyn oo kaa soo gaaro oo aan lagu garanaynin qofkaad shalayta ahayd iyo maanta markaa isku barbar dhigo marka suun baad arkaysaan goor dhow inkastoo hadal siyaasadeed uu yahay oo suun ay noqon karto dhowr bilood oo soo socda iyo sanad soo socda iyo maalmo intaba ay noqon karto haddana hoosta wuxuu ka xariiqay xaaladdiisa sidaas tahay waa kan mar kale soo dhawaada daawadayaal. We know that Iran has elected a new supreme leader, Mojtaba Khamenei. He has not been seen yet in public, though he did issue a statement yesterday. I'm sure you have heard the comments from the U.S. Secretary of Defense, Pete Hegseth, who has said that he claimed the supreme leader is wounded and likely disfigured. What is the status of the supreme leader, Mojtaba Khamenei? Well, they have made so many claims like this. Yesterday, they said that all Iranian authorities are in the bunkers, but at the same time, the whole world saw our president, the Speaker of Parliament, everybody, the Secretary of our National Security Council, everybody was in the street among the people who demonstrated. So there are lots of accusations like that. They will see soon, I guess, that there is no problem with the new supreme leader. He sent his message yesterday, and he will perform his duties. He is performing his duties according to the constitution, and he will continue to do that. Pointi kale oo muhiim ah ayuu halkan Cabaas Caraaji uu sheegay waxa uu yiri caalamku waa inuu ogaadaa oo ay hoosta ka xariiqaan dowladda dalka Iran qof iyo laba inaysan u dhutinaynin waxaynu leenahay system gaamuray oo markaas muddo dheer soo jiray oo shaqaynayay oo la tijaabiyay oo adkaysi leh oo tiirano ku taagan yahay leh oo udub dhaxaad leh oo markaas aan jabaynin ayuu leeyahay oo soo hadalka u dhigaya waxaana tusaale kugu filan Ayatollah Cali Khamenei marka la khaarijiyay dowladeenu ma aysan dhicin dagaalkii kan ka horreeyay madaxdii ugu sarreysay ayaa la khaarijiyay bishii June sanadkii tagay 2025 Iran ma aysan dhicin marka nidaam ayaa jira qof iyo labana loo dhutin maayo ayuu leeyahay Cabaas Caraaji waa arrin kale oo weyn oo laftigeedu mudan xaqiiqatan in la dul istaago oo ujeedada ka dambaysa ay tahay aniga haddii la dilo Cabaas Caraaji iyo haddii la dilo Mojtaba Khamenei la dilo mid kala soo baxaya dowladda Iran waa soconaysaa fariinta uu diraya waxay tahay dil iyo weerar iyo duqeyn waa samayn kartaan laakiin dowladda dalka Iran intaas waa ka facweyn tahay inay fashilanto xilli la rajaynayay in dowladda dalka Iran waa hore lagu kaco shacabku ay ku kacaan oo markaa lagu kala baxo waxaan kaloo jeclayn hoosta ka xariiqo waxaa halkan hadda igaga muuqda madaxweynaha dalka Mareykanka oo ka codsanaya caalamka gaar ahaan wadamada shidaalkooda uu maro bariga dhexe iyo meeshan Hormuz intaba hadday ahaan lahayd badda cas iyo dhinacan kalaba hadday ahaan lahayd ka codsanaya in ay maraakiibtooda dagaalka ay u diraan oo markaas
ay ka feer dagaalamaan Israa'iil iyo Maraykanka ay ka feer dagaalamaan. Donald Trump waa ninkii nagu yiri inta caalamka soo hor istaagay yiri maraakiibtayda ayaa galbinaya maraakiibta shidaalka wada oo anaa damaanad qaadaya. Hadda caalamka ayuu wax ka codsanayaa in ay maraakiibtooda dagaalka u diraan. Halkaas waxaa ka cad Donald Trump waxa uu shalay sheegayay iyo haatan hadalkiisaano inay iskhilaafsan yihiin uusan damaanad qaadi karinin in ay markaas u ogolaadaan inay maraakiibta ay galbiyaan. muxuu u galbin la'yahay isagoo culudii ugu weyneeda caalamka. Sidoo kale waxaa jira warar kale oo daawadayaal saacadii u dambeysay saxaafadda aad u haystay oo la lahaa Netanyahu 6 farood buu leeyahay iyo waa dhintay iyo waxaas waxba saliya raadsi ma lahan. waa AI weeye AI weeye. waxaa kaloo jira warar kale oo isa soo taraya oo ku saabsan laftigoodu in markabkii weynaa ee USS Abraham Lincoln khasaare uu soo gaaray. dowladda dalka Iran waxay sheegatay inay dhaawacday markabkaas meeshana uu ka cararay. dowladda dalka Mareykankuna waxay leedahay arrintaas sal iyo raad ma lahan. haddaba su-aashu waxay tahay maxay Mareykanku u soo bandhigi waayeen markabka xaaladiisa iyo waxa uu ku sugan yahay haatan haddii warku uu been yahay. Back to the video. raalli ahaada daawadayaal soo dhaweynaa mar kale. waa kan Cabbaas. I think by now it should have been clear and it should have been known for everybody that our system is very well rooted in the society. The Islamic Republic is a system which is not dependent on any individual or any group of people. It is well established. It's a very well established political structure, and deep state is doing its functions, is functioning, and everything is in place. So they shouldn't have any hope for anything happen to the individuals. That the system is working. It worked properly after the assassination of and martyrdom of our supreme leader. You saw that nothing happened and everything remained in order, and still everything is under control. وهذا ugu dambeyntii su'aasha la weydiinaya waxa ay tahay Ruushka iyo Mareykanku mid caawinayaan. Cabbaas Caraaqi ayaa sheegay inay dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo military ahaanba xiriir adag ay labadaas wadan ay la leeyihiin, laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu intaa ka badan uu ka faaloodo oo sirtiisa ayuu qarsanaya xilli la aaminsan yahay labadaas dowladoodba inay garab siinayaan ayagana dantooda ay ku jirto Iran inaan la fashilinin. Iranna Ruushka ay garab istaagtay. Jones hadhihin hiil iyo hoo hadhihin xilliga dagaalka oo aadka u qaraaraa 4 sano la soo dhaafay socday welina socday Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya. dhinaca kalena shiinuhu oil shidaal fara badan ayuu ka gataa dowladda dalka Iran oo dantiisa ayaa ku jirta inaysan fashilmin. waxaan jeclahay inaan shakhsiyan idin tusaale badan aragteen. ninkan waxaa la yiraahdaa David Sachs ayaa la yiraahdaa. waa mid ka mid ah dadka Trump ugu taageerada badan. waxa uuna qoray aan ilaahdee warbixin uu diyaariyey oo ku saabsan podcast uu leeyahay ayuu wuxuu kaga hadlay xaaladda dhabta ee markaas jirta ee gudaha Israa'iil ka jirta iyo dagaalku meesha uu marayo. waxaan idinkaga diyaarin doonaa haddii Allah uu yiraahdo video gaar ah hadalkiisan haddii Ilaahay yiraahdo. laakiin waa hadalka caalamka soo jiitay ee aad iyo aadka markaas loo hadalhayo. waxa uu yiri Israa'iil duqeynta lagu hayo waqti abid ugu adkeyd ee soo marta ayuu yiri oo nooceedo kale aysan arag taariikhda Israa'iil ayuu leeyahay. duqeynta Iran ay ku wada Israa'iil waqti abid ugu adkeyd oo nooceedo kale aan abid u soo marin Israa'iil intii la dhisay. waxaana loo baahan yahay of Arab in la helo oo ah markaas sidii loogaga bixi lahaa dagaalkan loo soo gabagabayn lahaa. Trump ha ku dhawaaqo, ha isku caleema saaro, ha isku ceero shubo oo ha yiraahdo waa guuleystay kana bax. muuqaal gaar ah ayaan xubintaas idinkaga diyaarin doonaa haddii Allah uu yiraahdo goor dhow. waxaad daawanayseen daawadayaal Brit Somali TV. aad iyo aad ugu mahadsantihiin waqtigiina qaaliga iyo fikirkiina saliimkaaba. intaanu kale dib ugu kulmi doono haddii rabbigay keligii uu raalli ka noqdo. khiyaar nabadgelyo.